xusid mudan in xaruntan la dhagax dhigo waxay ka dhalatay dhacdo xanuun badan. waxaan noo soo baxday in la sameeyo xarunta howlgallada degdega ah ee qaranka oo ka hortagta iskuna diyaariso masiibooyinkaas intaysan dhicin si ay uga jawaabto oo ay xal ugu hesho. 13 Oktoobar sanadkii 2019 ayuu Ra'iisul Wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Kheyre dhagax dhigay xarunta gurmadka qaran oo loogu talagalay inay daboosho xaaladda degdegga ay keenaan noocyada kala duwan ee masiibooyinka. Ha yeeshee muddada sanadka ahayd ee laga joogo xilligii uu dhagax dhigay Ra'iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre waxba lagama qaban. waxaase mar kale maanta dhagax dhigay Ra'iisul Wasaare Roble. toddobaadkan gudihiisa waxaa sidoo kale munaasabad furitaan loo qabtay wadooyinkii xirnaa iyada oo u muuqanayso in dusha looga rogayo xanibaadda muddada sanadka ahayd ee saarneyd shacabka Muqdisho xukuumaddii hore Kheyre. dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya inay jirto dagaal siyaasadeed oo lagu hayo Ra'iisul Wasaarihii hore ee hadda sheegtay inuu yahay musharax madaxweyne 2020-2021